بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhamaantii waa idin salaamay walaalaha sharafta leh dhamaantii waa idin mahadcelinaya asxaabtii igu soo biiraysa maalin walba asxaabteydii hore waxaa idin leeyahay waad mahadsantihiin saa ii garab taagan tihiin insha allahu tacaala maanta waxaan noo sameynayaa saa arkaysaan macmacaan yar hadduu ilaah yiraahdo macmacaankaas aad uu u fudud yahay sidaan u sameynayn nala daawada please videogan hadduu kusoo gaaro like noo saar okay waxaa soo qaadanay saxan saa arkaysaan buskudka caadiga ah adiga buskud alla buskudka ku yaalaa ka sameysan kartaa macmacaankan buskud yaro waaweynaa jirto oo inta badan dadka ay ka sameeyaan ani laakiin kana ii yaalo kan leena ka sameynaya insha allahu tacaala waxaa soo qaatay whipping cream ama kareemka oo toortaha lagu sameeyo waa soo garaacay waxaa kusoo garaacay bahashan ii sheegay keega lagu qaso markaa soo garaacay kadib baaquligaas iigu jirtaa sa arkaysiin saxanka hadda waxaa marmariyay ee cad waa whipping creamka kadib waxaan sameynayaa buskudka nooca isticmaalaya Neofit waaye wuu jilicsan yahay buskudkan 5 shilina la gadaa kaasaan ka sameynayaa insha Allah buskud kale oo ka waaweyn wuu jiraa oo lagu sameysan karo laakiin ani hadda kana haystaa kana ku sameysanayaa okay waa u jeedaan saa u safaayo buskudka mana qoynin maadaama buskudkan uu aad u jilicsan yahay waxaa ma damcin inaan qooyo isaab iska qoyayo markii saas loo dul saaro whipping creamka buskudka yaa safeynaa saa arkaysiin walaalaha sharafta leh haddaa u baahan tahay xataa caano waa ku qoyn kartaa laakiin wuu kaa bajaqayaa aad u jilicsan yahay buskudkan nooca yara adag haddaa isticmaalay sidoo kale caana ku qoynaysaa ma fahanti maanta jimco waaye macmacaan yar aan jeclaystay inaan ila sheer gareeyo aad uu fudud yahay wallahi inab caadina ma aha waa qiyaas waa arki doontaan sa arkaysaan buskudka weli safaaya meel walba saas inaa waxaa la rabaa uga xirtid dabaqa hoose dhowr dabaqaan ka dhigayna buskudka intuu noo gaaro iyo creamka noo qasan soo kusoo baxana waa arki doontiin macmacaankan hataa hadduu marti ku imaanayo waa 5 daqiiqo wuxuu kaa qaadan karaa adi 5 yaanan dhihin adi wuxuu kaa qaadan karaa ilaa 10 daqiiqo ma fahanteen fridge markii la gelinayo 10 daqiiqo bas uu u baahan yahay 10 daqiiqo kadib diyaar u noqonaya ma fahanteen marka marti haddii ku imaato kale waa okay adi haddaa sameysanaysid haddii ilmahaaga u sameynaysid yani casuumadaha oo kale waa la sameeyaa wuxuu diidaya ma lahan tartiib aadan ugu sisimaa creamkii kii hore dhameeyey dabaqii hore waa dhameeyey dabaqii labaadaan bilaabay sa arkaysiin dabaqii labaadaan bilaabaya creamkii mar labaad kor saaray haddana insha Allah macmacaano badan oo fudud oo iska easy ah idin soo gelin doonaa oo ka faa'iidi doontaan insha Allah marka casuumada qabtid maxaa la dhahaa marmar haddaa rabtid wax kale macaan ay ka hayso kale ani whipping creamka xataa sokor kuma qasin waa iska easy ma fahanteen macaan saas uga sii badanaa uga sii yani whipping creamka sokortiisa caadiga ah lee ku garaacay wax sokor oo kale dusha ma uga darin sa ogtihiin whipping creamka dadaa sokorta budada kusii dara ama icing sugarka ani ma ku darin buskudkaana qofkii yaqaan wuu macaan yahay marka whipping creamna maxaa la dhahaa macaan in ku filan uu ku jiraa marka sidiisa le iskugu sameynaya insha Allah tacaala inaba caadi ma ahan soo tijaabiya bilis waa ka heli doontaan haddaa marti qaad qabtid hadduu qof marti ku imaanayo haddii aa casuumaad qabtid haddii adi xataa iskaga baashaalaysid wuxuu diidaya ma lahan waa wax walba dhagow ku yahay marka whipping creamka qofa aqoonin inuu jiro ilma ahan laakiin inkasta haddii ay jirto in case whipping creamka sawirkiisa inta soo saaraya isoo cream ah wuu jiraa oo liquid ah biyo camal isoo caana camal aa jiro isaga oo maxaa la dhahaye to whipping creamka yani border ah
marka hadaa ka boodarka isticmaalayso sidoo kale waxaa sameynaysaa waa soo qaadaysaa kishkish u xiranaysa aragteen boxki waxaa ku jiro 2 bac oo xiran marka hal bac oo kala weel ku shuban adiga wixii kugu filan adaa garanaysid hal bac markaa ku shubtid hal galaas oo caano qabow ama biyo qabow oo ayska ka soo bixisay ku shubaysaa kadib xurbiinka oo ukunta lagu garaaco ku garaaci ama waxa ku garaacaysaa maxaa la dhahayeeto makiinada oo loogu talagalay keega marka inuu diyaar yahay waxa ku ogaanaysaa markuu adkaado weelka ku garaacaysa u yara gadi haduu soo daadan waayo diyaar waayo haduu soo daato wili waayo waa ku sii wadaysaa garaacista insha Allah ina fahanteen rajeenaya laakiin waxa isticmaalayo midka caanaha ah oo diyaarsan sawirkiisa inta soo saaraa insha Allah taala saaw aragtaan supermarketyada inuu yaala marka diyaarka midka ah iska soo qaataani macmacaanada iyo keega markaa sameeyay kaas ku sameeyaa insha Allah macmacaano badan ay soo gelinaa keega si loo sameeyo wax walba channelkeygana macmacaan badan ku jiro busbusada si loo sameeyo honeycomb wax walba ku jira cunto caadi oo isku simple ah insha Allah taala waxaan ka rajeynayaa inaad channelka ii kala kicisaan subscribe-ka igu saacideysaan like comment insha Allah taala waan salaamay dhamaantiin walaalaha sharafta leh madaxa ii saarantihiin okay hadda saarkiisaan fargeetay qaadaa saas isku garab dhigay kadib waxa ku kala daadinayna waxa waa cinnamon roll ugu shubaya marka walaalayaal video ma ka duubin videogan markii aan jaray soo ku soo baxo ina aragtaan fiicneed martii ay imaatay saxanka saasa ku geeyay marka insha Allah taala wakaasa hada fridge kan gelinaya 10 daqiiqo kadib waa qadimaya miiska si geenaya insha Allah taala waa maasantiin dhamaantiin